السلام عليكم. anigoo magacayga maxamed neero inta uga jeedaan waxaan jeclaa maanta inaan idin sheego bishaaro yar oo ku saabsan asxaabta beejkan aan ku wadaagno. waxaan idin ama aan idin leeyahay welcome to the qosol iyo qarami page. dabadeed waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan idin sheego asxaabta groupkan ama beejkan ka mid ah in markaas the qosol qarami page ee idinku tala gashay barnaamij ka bixi doono. barnaamijkaas oo ah xagga waxbarashada, especially barnaamijkaas ku saabsan teknolojiyada caalamka ama computerka hadda isticmaalno hore language-yada loo isticmaalo sida u taqaanaan IT professional ama waxaa dhihi kartaa computer science or software engineering. ardada noocaas oo kale ah ee design garaysay computerada, design garayso hadda smartphone-ka aragtay design garaysay. So waxaan jeclaa insha allahu tacaala anagoo iskaashanay asxaabta beejkan guud ahaan waxaan jecel lahay insha allahu tacaala inaan khaasatan aniga one of the member maadaama aan ahay waxaan jeclaa inaan soo gudbino sida soo socoto. waxaan jeclaa insha allahu tacaala subjectskan meeshaan uga jeedo, maadooyinkan meeshaan uga jeedo waxay ka bixi doonaan insha allahu tacaala beejkan ama beejkeena the qosol iyo qarami. waa first of all waa Java language, C# language, HTML, CSS, SQL Server 2008, JavaScript. actually guud ahaan waa programming language, laakiin waxaa kala duwan sida loo isticmaalo baartiyada. sida HTML-ka, CSS-ka, JavaScript way israacsan yihiin as web designer ama qofka inuu noqdo rabo web developer inuu yaqaano masti ku ah. waxaa kaloo soo raaco SQL-ka waxay u dhexeysaa programming language-ka sida Java language-ka, C# iyo waxay u dhexeysaa web design because of qofka database inuu masti programming hadduu yahay inuu database wax ka yaqaano qasabay ku tahay. everything marka aad program ama aad samaysid any application waxaa u baahan tahay in markaas aad create galaysid database programkaaga hadhowti si markaas datadaas programkaaga wax ugu soo qaado. okay, waxaa jirto waxaan jecel lahay step by step. hadda waxaan jeclaa insha allahu tacaala two option ayaan doortay, Java language and SQL Server 2008. insha allahu tacaala labadan subjecti ayaan jeclahay in markaas si sequence aan u sameeyo weekly 2 time or 3 time insha allahu tacaala in markaas beejkan aad kala socon kartaan wixii markaas adinka laftiga cilado soo baxo ama qaladaad imaado ama mistake imaado insha allahu tacaala inaan nala soo socodsiisan. waxaan idin leenahay most welcome. waxaa kaloo jirto aan rabaa insha allahu tacaala inaan idin sheego haddii uu ilaah yiraahdo insha allahu tacaala waxaa heli doontaan adeegyadan sida qofka hadduu u baahan yahay in loo design gareeyo website. wuxuu kaloo heli karaa sida in markaas website loo sameeyo sida dynamic website or static website, any language, ASP.NET and PHP, whatever oo asaga interest gareynayo. and second thing waxaa la heli karaa internet marketing. qofka hadduu rabo in markaas pagekan hadda anaga aan asxaabta aan ku nahay anigana aan one of the member aan ahay waxaan jeclaa insha allahu tacaala in markaas qofkii u baahan sida xayeysiimahoo kale internet marketingka sida markaas loogu xayeysiiyo businesska inside gudaha internetka in markaas aan ka caawino qofkii u baahan iyo social media
social media mostly waxaan u maleynayaa social media waxaa u isticmaashaan oo kale waxaa la lahaa facebooka, twitterka, and google plus and so on bla bla bla. So social media waxay u qaybsamaan way badan yihiin, waa aalado badan ee media ka tirsan, waxaana loo isticmaalaa in markaas dadka businesskooda ay si fudud ay ku gaarsiiyaan Australia, Africa, Asia, Europe. qofka asuu joogo gurigiisa ayaa wax ka u bixin karaa Africa. So waxaan jecelnahay insha Allah taala qofkii u baahan adeegyada noocaas oo kale in markaas uu ka heli doono page-kan Zee Qosol iyo Qarame. waxaa kaloo raacinaa qofka u baahan suppose inuu website loo sameeyo ama in loo design gareeyo, it doesn't matter, domainka waa loo gadaa, website-ka waa loo bilin kareynaa. haddii uu wato shape ama structure website-ka uu rabo in loo sameeyo mid u eg hadduu rabo, suppose hadduu rabo kale tusaalaan oo kale inuu rabo design-ka Radio Muqdisho, hadduu rabo Jowhar design, hadduu rabo whatever it is, haddii uu haysto in qaab dhismeed kale ee website in looga sameeyo sidoo kale hadduu raban insha Allah taala waan jecelnahay, waan soo dhaweynaynaa, and most welcome. waxaa kaloo aad iyo aad ugu mahad celinaa asxaabta qaarka adminka ka ah ee u suurtageliyay asxaabtooda page-ka ku jirto in markaas fursadahan ay ka faa'iideysan karaan. dad badan u baahan inay website sameystaan, dad badan u baahan inay businesskooda ay horumariyaan. So page-kan insha Allah taala wuxuu idin fududeeyay waxyaabo badan oo laga yaabo in markaas dhibaato badan u martaan. insha Allah taala waa nala soo xiriiri kartaan page-kan. welcome aan idin leenahay insha Allah taala hadduu Ilaahay yiraahdo. السلام عليكم كلن دنبه iyo insha Allah taala is arki dambe xiiso leh.